maantana maraykanka horta ka quusan waayay oo ka maarmi waayay wax xuluufo la yiraaho dad kala maarmaayana ma nihin 30 sanadood baanu qaar u kala taagnay anu waxaan haa dadkii maxaa ahayd u hay'ada oran jiray anu bunhaashin baanu ku abtirsanaa niyo dad boqorkii irir Soomaali haysataan oo dugaaskii irir Soomaali haysataan anna boqoradii irir Soomaalana markuu ugu horeysan waan idin soo dhaweynaya waxa weeyaan wafdi culus oo wanaagsan oo kalgacayl iyo muxubbo aanu ku soo dhaweynayno weeyaan waxaana tibaadeen gurigiinii horta dayr weyn baa inagu kala gudbanaa runta markaynu soo sheegno waxa weeyaan dayr weyn ba maxaa haydin labadeena inagu kala gudbanaa laakiin xumaani may jirano haday xumaani jirto annako 1960kii qaadanay ugu horeeyay calankii ugu horeeyay ay Hargeysa ka bibishay oo Soomaali leedahay waana kii inaka oo kalgacayl iyo wanaag iyo jacayl iyo maxay ahayd walaaltinimo aanu maxamar geynay maantana maraykanka horta ka quusan waayay oo ka maarmi waayay wax xuluufo la yiraaho Yuruba ka maxay haydin maarmi weyday oo NATO samaysatay innaka laftarkeenu waynu su baahanahay dad kala maarmaayana ma nihin 30 sanadood baanu qaar u kala taagnay maanta waxa weeyaan inaynu runta isu sheegno waxa inagu yara dhex jirana aynu qaadno nin waliba markaa wuxuu xaq ku lahaana miiska la soo saaro ummadda kale waxay wax ku noqdaan waxbay biirsadaan imaka Europe waad aragtay intaasoo kursi bay United Nations-ka ku leedahay Africa waad aragtay intaasoo kursi bay ku leedahay wa innakana maxay noo diiday hadaynu Soomaali nahay inaynu intaasoo kursi ku yeelano UN-ta oynu intaasoo kursi ku yeelano AU-da oynu intaasoo kursi ku yeelano jaamacadda Carabta oo aynu wax kaliyana aynu ka shaqeynayno waa sida aynu dalkeena iyo dadkeena iyo dhalinyaradeena aynu horumarin lahayn waxaanu noqonnay geeskii Afrika meesha ugu macdinta badnayd waxaanu nahay meesha ugu qaniisan ee ummadii oo dhan isha ku soo hayso haddana dagaal iyo wuxun bayna kala dhaxmaray marka aanu maanta bil Ramadaan weeyaan ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay horta qalbigeena iyo wadnaheena inuu burcad isu mariyo ilaahay waxaan ka rajaynayaa maanta waxa weeyaan maalin weyn derbi culus baynu jabinay wada cajiib baynu jeexnay inuu ilaahay wada hagaagsan oo fiican oo aynu aan ka midho dhalino inuu ilaahay inooga aqbalo inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala walaaltinimadeena iyo wanaageena iyo dad boqortooyo ka soo maxay tafaarmina baynu nahay boqortooyanimadeeni iyo wanaageeni inuu ilaahay dib inoogu soo celiyo ilaahay waxaan ka rajaynayaa caruurteeni maxaa cidladaha iska jooga mid waliba dabadaha u dhoofaya badaha isku tuurayay inuu wadamadeenu ay noqon doonaan wadamada ugu qanisan oo gaaladu ay u timaado oo ina barido oo tiraha war fiisa isiya aan wadankiina aan ka shaqaysteen إن شاء الله بإذن الله كريم. مركا تانا وحنو كهلينا إن إنه وذا فريسنا وحي إنه دنا ما هددك كلا يوروب يو وحاسو وحا يكو أركان إنه دنتا هاي إنه دقيسنو ور إنكم ميانا إنه دد إسكو تشنكرين ميانا نهاي وإن إنه إسكو تشنو وإن إنه فريسنو وإن إنه وذا حضلنو وإن إنه مال وذا مرنو إر Soomaali afarta beeni jahabu kala taagan yahay waa inay dadka ugu fara badan waynu noqonnay marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaynu noqono dad ismaqlaaya dad isdhageysanaya dad isjecel dad meel wada maraya insha Allah bismillaahi kariim hablaha yagana waxaan leeyahay wadankiini baad joogtaan عاصمتي baad joogtaan welcome ku soo dhawaada maanta marka laga bilaabana
maanta marka laga bilaabana faadma siciid hadaa lagu yaqaanay maxaa ahayd meel kaliya maanta waxaan ahay gabadh boqorada irin Soomaaliyeed